مدن سعيد مدن سعيد مدن عبد الرشيد مدن سعيد مدن عبد الرشيد مدن عبد الرشيد مدن سعيد مدن سعيد مدن سعيد مدن سعيد مدن سعيد مدن عبد الرشيد مدن سعيد الله جوجي عضبة صعونية الله جوجي صعب مدن سعيد مدن سعيد مدن عبد الرشيد مدن عبد الرشيد مدن سعيد حسن مدن عبد الرشيد مدن سعيد حسن مدن سعيد وعدكي ودميي ومدن سعيد حسن شريف ودمادين صندوقي نواكا وحكو هرين مجيران سوق والله هلا فريستو إلى عدك اللي قلنا واقع هلا فريستو عدك سوى في شلون اللي قلنا واقعية صحافتنا رغاق النجد هي كبح حجبانا الدحدودا فضلا وين كعسنا عدك اللي قلنا واقعية دومية قلنا دور شذا قلنا واقعية فضلا صحافتها فريستو فضلا صحافتها أنا مغش عيدا كامنية عيدا كامنية صحافة شغلنا دي كويسة صحمتها عيدا كامل وهفريس يعني دد كان سو كعay dawadayaal wali waxa nagala socotaan Somali Channel waxa dhamaaday wareegii kama dambaysta ahaa ay ku kala baxayeen labada murashax ee soo gaaray wareegga kama dambaysta ah ee doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland wareeggaas ayaa soo dhamaaday kama dambaysta waxa haatan u tartamay wareegga kama dambaysta Saciid Xasan Shire iyo waliba Cabdirashiid Maxamed Xirsi waxa lagu dhawaaqi doonaa natiijada oo haatan gudido aan ka sugayno inay ku dhawaaqaan Faisal sidee wax u socdaan waxa weeye arrin aad iyo aad dad far badan oo ama arrinta xiiseeyay ama goobta joogay wixii natiijo u deynayna gudoonka sidoo kale waxay si aad iyo aad aan macnaheedu dadka qaarkii u qiyaas kareen waayo dhinaca kale waxa laga oran kartaa in dadku new face la helo ama waji cusub oo la helo gudoomiyaha baarlamaanka la helo waxa moodaa inay arrin xiiso lahayd sidoo kale faraqaynta soo laabanayna dawadayaasha usii wadi doonaa waxaana ku tartamay labada mudane mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo xildhibaan Saciid Xasan Shire labada mudane wareegga dambe isugu soo haray mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi wuxuu helay 26 cod mudane Saciid Xasan Shirena wuxuu helay 40 cod taas waxay cadeynaysaa codkan waxa lagu kala baxayay cod hal dheeri ah maadaama waxaana lagu soo kala baxay oo hadda inoo dhamaatay doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka
si rasmiya in ugu dhawaaqo xilkan ula kala wareegaan waxaan ku wareejinayaa gudoomiyihii ku-meel gaadhka ahaa ee golaha wakiilada mudane cali axmed cismaan. waxaa lagu wareejiyey gudoomiyihii ku-meel gaarka ahaa ee golaha wakiilada ee Puntland oo haatan isagu hadli doona waxaana uu wareejin doonaa xilka gudoonka golaha wakiilada ee Puntland oo ku wareejin doono gudoonka cusub gudoomiyihii ayaa hadlaya ku-meel gaarka ahaa ee baarlamaanka lahaa. waa mahadsantihiin sida sharafta leh ee aad uga soo qayb gasheen dadka martida sida xildhibaanadu uga soo qayb galeen ama martidu uga soo qayb gashay edabta ay lahaayeen iyo xishoodka aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inkastoo waqtigu dheeraa waxaan aad ugu mahadnaqayaa inay si wacan oo sharaf leh oo edab leh inay u fadhiyeen sidaa darteed markii hawshii ay ilaa intaa socotay waxaa ku guulaystay siciid xasan shire oo ku helay 40 cod sidaasay ku dhammaatay cabdirashiid oo helay 26. gudoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu haatan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Puntland uu yeeshay Siciid Xasan Shire wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland weeye haatan waxa uu ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland ee cusub waxa uu gudoomiyaha u noqon doonaa baarlamaanka Puntland 5 sano ee soo socota dawladda dhalanaysa 8 bisha January sanadka 2014 gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Puntland Siciid Xasan Shire ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta rugcadaaga ah ee aadka looga yaqaano guud ahaan gobolada Puntland waxa uu gudoomay oo gudoomiyihii hore ee ku-meel gaarka ah uu ka gudoomay xil wareejinta uu sameeyay xilka uu ku wareejiyay waxa sii socon doona doorashada aan dib ugu laabto saaxiibkay Faysal Khaliif Barre oo halkan si toos ah igala daadihinayay barnaamijka la xiriira doorashada Puntland Faysalow sidee wax u dhaceen waa aragnaa Siciid Xasan Shire oo wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaan aad baa u mahadsantahay waxaan rajaynayaa in dadweynaha soo noqon doono kelmadda gudoomiyaha ayaan jeclaan lahaa inaan ku doono daawadayaasha hadii la daawadayaal waxaan nagala socotaan Somali Channel waxa barnaamijkan fududeynaysa Golis Telecommunication Company waxaan siinaynaa gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Puntland Siciid Xasan Shire oo hadalkiisii ugu horeeyay halka ka jeedinaya iyo dareenkiisa sida uu arko. marka hore Ilaah baa mahad leh marka labaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدحاتك وحن أمها النغاية لما نضق لها شعبك الدولة بنتلان ميدي دورتي يمدان دوران دمانتو هذا أمها النغاية وحن كلا أمها النغاية صاحبة دي اللي باندي شرفت لها وأن ترتني ومركي horena sheegay inaan la shaqeynayo haday guuleystaan hadeerna ka rajaynayo khudbadahooda ay jeedin doonaan inay ila shaqeeyaan anigoo ku faraxsan inaan tartanay oo ay sida sharciga oo walaalnimada ah inta haddaan ka gudbo waxaan kaloo mahadnaqayaa guddiga doorashada waday shaqada waday iyo gudoomiyahoodii waxaan kaloo mahadnaqayaa ciidamada amniga iyo saraakiisha madaxda dawladda oo hawshan ilaa inta xildhibaanada soo magacaabay u helanayd inta haddaan ka gudbo aniguna waxaan codsanayaa inaan lay hambaliyo inay lay ducayo xilka lay dhiibay
inaan ku guulaysto aanan noqon mid ku fashilma intaa inay igu soo ducaysaan sidaas waxaana codsanayaa doorashada in halkeeda ka socoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa Siciid Xasan Shire gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Puntland oo markaasi ka mahad celinayay sida ay sharafta leh u dhacday doorashada gudoonka baarlamaanka ee Puntland waxa uu sidoo kale u hambaliyay xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo uu sheegay inuu si weyn ula shaqeyn doono dhammaantoodba cid dooratay iyo cid aan dooran wali waxaan ku guda jirnaa hoolka baarlamaanka ee xarunta magaalada Garowe waxaa socda hadalkiisii uu jeedinayay gudoomiyaha hore ee golaha wakiilada ee Puntland saas macquul ma gadaal in loo laafto waa tahay adiga baray hoy wareeg بسم الله الرحمن الرحيم وعن هذه وهم بليين يا قدوميها عصب قدومية سعيد حسن شري وأهلنا أنه مددر مسؤولية بدلان كوضع هيني صاحب قارة نانا هين حلكا وكوكو ليستي مركا كواد وهم بليين إياه مركا اللباد وحان آدي آد وهم بليين إياه ولا وكيل لذا صاحب ضيئة آد تدك عصب وجياد عصب صومالي ما حيلة سيسوه لكن ربيتان كوضا iyo wada shaqayntii iyo tixgelintii ayaa qarka u soo saaray inaan qaado xilku waa meerto ninba maalin buu fadhiyaa gudoomiyaha wuu hambalyeynaya baasha muddadan hogaaminayay meel la taaban karaa soo taagaya waxaan rajaynayaa bartaa inaad hoggaanka uga qabatid waxaana ballan qaadayaa aniga saaxiibadayba inaan kula shaqayno oo ku garab istaagno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم حسن هيدا وضيال قدوميها برلمانك بنتلان قدوميه هوري برلمانك بنتلان oo isagu ka qayb qaadanayay dareenkiisa ka jeedinayay halkaas dhageystayaal waxa jiray doona waa tahay dhageystayaal waxaan ku sii jiri doonaa khadkeena inaga oo guud ahaantii eegi doona jawigu sida uu yahay iyo dadku sida ay yihiin waxaan rajaynaynaa in aanu la kulanno gudoomiyaha baarlamaanka cusub iyo sidoo si leeg aanu aragno goobjoogayaasha waxa haatan dhinacayga joogan goobjoogayaal caalami ah oo iyo kuwa Soomaaliya oo goobta joogay waxaan jeclahay in aan dhanka midigta kaga bilaabay ay soo xigta walaal magaca magacaygu waxa la yahay Faarax Maxamuud Cusmaan waxaana gudoomiyaha qurbo-joogta golaha qurbo-joogta Puntland waa tahay maxay idin bahay maanta waad joogteen goobta wada wanaagsan see u aragteen runtii waxaan ahayn waqti ballaaran oo wadamada kala duwan ka yimid inay observer ka ahaadaan qurbo-joogta ka noqdaan doorashada halka ka dhacday waxa muuqata doorasho xor iyo cadaalad ku dhacday halkan ka dhacday waxaad ka dareemi kartaa wareegyada kala duwan ee doorashadana soo martay in wareegga saddexaad lagu kala haray taasoo ahayd doorasho runtii aad iyo aad u qaraareed آخركين وكوجلستي سعيد وكوجلستي قدوميها عصبة برلمان كبنتنا. واتهاي كورنيل محمد محادية سيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا رنتا سيدا هاد قدوميه وبشيغي. أنا وحنا هاي جروب كا وسيرفرز كا أو تبدأ كيمي وح آد إيه آد وح لو فرحة حبكة إيه قابكة دورشة دور عادي. iyo sida ay raysku tayd u yahay wax lagu farxo weeye runtii waan soo dhaweynaynaa waxa aad iyo aad sharaf weyn inoo wada ah si nabadgelyo ah oo wanaagsan in election ku dhacay waxaan rabu rajaynaynaa gudoomiyaha cusub inuu si wanaagsan u hogaamiyo xilkiisana Ilaahay u fududeeyo
maxaad is leedahay qaybta dambe doorashadu way noqon doontaa adiga adoo ku bilaabaya magacaaga magacayga waxaa la maxamed maxamuud diiri waxaan ka mid ahay qolada qurbo joogta ee goobjooga hadda maanta ka meeshan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan aragno ama aan witness ka noqono doorasho xor ah oo ka dhacday baarlamaanka Puntland mid waxaan filayaa kuwa ku xigaan inay sidoo kale noqon doonaan oo ay noqon doonto transparent dadku ay arkaan waxa laale iyo wixii meesha ka dhacay iyadoo aan qofkuusan u eexanayn marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan su'aal idin dhex dhigo idinkoo dareenkiina ka qayb qaadanaya ma waxaad is leedihiin ninka la doortay waxa lagu doortay khudbadiisa ma waxaad is leedihiin qorshe balangareysna ma waxaad is leedihiin gobolba lagu doortay maxay idinka baxay maadaama aad ahaydeen dad qurbo jooga laakiin xaaladda dalka dusha kala socda laakiin aan ogeyn inta badan waxyaabaha hoos ay jira runtii qulubta dadka wax doorashada bixiyaano kuma jirno laakiin waxaan dareemi karnaa dhowr waxyaalood baa maanta halkaa ka soo baxay baan oran karaa siyaasad comments kama bixin karno marka kor jooga tahay runtii marxaladan taaganahay comments kama bixin karno arrimaha siyaasadeed oo Puntland oo hoose laakiin waxaan oran karnaa qaabka u dhacay baan ka warrami karnaa processku wuxuu ahaa process transparent ah soo far intaan aragnay wuxuu ahaa process sanduuqa cad oo loo wada jeedo muraayada la gelinayo process wuxuu ahaa qolal dadka xor u yihiin ay galayaan kooda ku soo dhiibteen process wuxuu ahaa rabitaanka shacabka ka turjumayay dadkii markaa soo doorteen oo xubnaha baarlamaanka ahaa waxaan rajaynaynaa processka ku xiga oo ku xigeenka koowaad iyo ku xigeenka labaad iyo kan madaxweynaha oo 8 bisha dhici doona sida open iyo transparent-ga inuu ku socdo oo u dhaco annaguna projectadaas aan ahaanayna annagoo notes qaadanayna annagoo warbixin ka soo saari doono doorashada waxaan kala kulanay waxaan rajaynaynaa in doorashada cadaalad ah oo nabad ah oo peaceful-ka ay ku dhamaato maxaa ku darlayd ما يستاهل سيدنتو waxaan warnay gudoomiyaha loo yiri aad iyo aad ba Soomaali jaran aad iyo aad ba ma santiin meel walba iyo waqti kasta oo la joogaan waad heegan u tihiin qulubta iyo dhegta dadka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogina gaarsiisaan waxa weeye saxaafadda waxaad kaga jirtaan baal dahaba waan idin hambalyeynina aad iyo aad ayuu ma santiin walida wadayaal waxaan ku jirnaa in aan dad badan oo halkan jooga aragtidooda wax ka weydiin haatan waxaan rajaynayaa inaan la kulmo nin dhalinyaro oo isaguna kamid ah dadka goobta joogay maxaa magaca محمد شرجان محمد شرجان maxaa ku baxay waxa ay baxay inay Puntland maanta ay ku talaabsatay qaangaarnimadeedii 16 sanadood oo ay dooratay gudoomiye cod xalaalana ku soo baxay ninkaas oo aan dhihi karo markaan dhageysanayo khudbadiisa waxa uu leeyahay khibrad iyo aqoon iyo hogaamin oo ku sii hogaamin karo golaha wakiilada dawladda Puntland aad iyo aad ayaad mahadsan tahay daawadayaal waxaa kale oo xarunta nagula sugan wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan oo ilaa iyo maanta iyo intii ay doorashadu bilaabantayba ahaa dadka aadka u shaqeynaya arrimaha ammaanka isla marhaantaasina maanta goobta joogay Khaliif marka hore ku soo dhawo Soomaali Channel waa dhowey waa tahay goobta joogtay sidee doorashadu u dhacday iyo dareenkaaga maxay kula tahay bismillaahi raxmaani raxiim marka horeysa waxaan rabaa inaan u sheego caalamka doorashadaanu inay si xalaal u dhacday kuna guuleystay gudoomiyaha baarlamaanka Saciid Xasan waan hambalyeynaya marka horeysa anoo magaca dawladda ku hadlaya marka labaad waxaanu ku dadaalnay oo aanu xoog saaray in ammaan ay ku dhacdo doorashadaanu waxaan kaloo ku dadaalnay magaalada nafteeda inay ammaanku lagu joogo waxaanuna ku dadaalanaa ilaahadankiis inta ka dhiban doorashada madaxweynaha inaanu amniga xoog saaro si ay ugu dhamaato si nabad ah insha Allah aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Khaliif Ciise haatanna waxa dhinacayga taagan musharax kamid ah musharaxiintii u tartamiyay gudoomiyaha Cabdixakiin ku soo dhawo Soomaali Channel السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد إياد بان وحن مركا كواد قم هاد عيني يا الله ما هذا إلهي كذب واحد على الدرشة في عن وحقه وعدالته وحنا هلي عدي الله أقري وحنا دوني مشرحين جاي دوني سنة تدبنا نحيي الله بيا هاين طبعا قف كستاو قرني إنه أما كوجو لسنكرا أما نكير كوجو لسنكرا مركا البعض حنوها مليانة يا قدوميها عصب مركا بتلان وحن أرجينيا دورة شفيعا وحلال مدحوينها يا مدحوين كحيانك يا قدومك أنت كهرديبا درينك يجانا مركا عبره ما يهين إن يضحن ما يهين إن مار الحن
waan tartamay waa tahay waa gogosanayna maxaad leedahay waa lagaga guulaystay cabdixakiino walaal wallahi horta waxaan ma oran karo caraf baa laga guulaystay waa muhiimad waxa weeye waxa laga guulaystay waa caraf because aniga ma ilaahay xaggiisa kama qorayna gudoomiye noqdaan taas weeye then waa laga yaabaa dadku inay ama xildhibaanadu inaanay qaybo si wax u qiimaysay Soomaad garanin marka waxa weeye guushaasi xaq almoon bay ka timi dareenkayguna aad buu u sareeyaa inaan helay anigu wax weyn kama hodsakeeyo waan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay doorashada waa tahay waxaad ahayd xildhibaan soo joogay baarlamaanka Puntland wax badanna ka og siyaasadda Puntland sida baarlamaanka uu shaqeeyo maxaad leedahay gudoomiyaha cusub way hor yaalaan maxaa caqabado ka hor iman kara muxuu haystaa jaanisyo wallahi waxa hor yaala mid aad u adag oo aad culus waxay tahay hay'adani waa hay'adii dalka ugu sarreysay hay'ad ahaan marka la yiraahdo waxa weeye waa hay'adii dalka muraayadiisa ahayd hadday wasakhowdo cid walba u muuqanaysay waa hay'adii hagi lahayd dalkan iyo dadkan waa hay'adii shacabku soo wakiishay waa hay'adii iyaduna u hawlgelin lahayd ama u wakiilan lahayd dad munaasib ku ah inay u shaqeeyaan shacabweynaha reer Puntland waxa weeye marka gudoomiyaha waxa hor yaala hawlaadu culus wuxuu hogaamin doonaa maanta Puntland oo dhan ayuu hogaamin doonaa marka waxa weeye haddii uu hogaamiyo dhanka wanaagsan iyo gooshana waxa weeye waa hogaamiye jira haddii ay ka xumaatana insha Allah waa dhacdaa waxaan si u rajaynayaa inuu noqdo mid hogaamiya goosha iyo dhinaca fiican dhanka marka la eego hogaaminta baarlamaanka hogaamin buu u baahan yahay 5 sano la soo dhaafay sida laga warqabo baarlamaanka Puntland wax khilaafaad oo dhexdooda ah oo badan ma jirin marka dhanka shuruucda iyo dawladda la eego baarlamaanka waxa lagu dhaliili jiray inaysan dawladda si wanaagsan u la xisaabtamin taas adoo si kale uga jawaabaya saadaashna ka bixinaya gudoomiyahani si waxyaabaha ku iman kara oo la aaminsan yahay inay tahay maxay kula tahay wallahi nii hawar taxba ka jira baarlamaanka shacabka soo wakiishay shacabkuna inoo shaqeeyo ay u baahan yihiin waan isleeyahay anigu sidii la rabay may gaarin laakiin waxay ahayn dad wanaagsan oo shaqeeyay in laga barka dhacaan ama qurux badnaa wayna shaqeynayeen laakiin dadka qofba siba wuxuu rabo wuxuu jeclaa uma heli karo sida danta guud oo baana muhiim ah sida danta guud ayuu baana muhiima haddana waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha cusub ee aanu tartanay guulaystay سعيد قدومية سعيد حسن شراء وانا وهم مليينيا وحنا ugu ducaynayaa in ilaahay xilka culus oo u fududeeyo wabillahi tawfiiq waa tahay daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaad naga daawanaysaan Somali Channel waxa barnaamijkan aan u mahad celinayna oo inoo fududeysay hay'adda isgaarsiinta ee Golis sidoo kale waxaad ka dhageysanaysaan barnaamijkan si toos ah idaacadda maxalliga ah ee SBC oo magaalada Boosaaso Garowe iyo waliba magaalooyin kale oo ku yaala Puntland si fiican uga maqlaysaan haatan waxa agteeda jooga gudoomiyaha la doortay Saciid oo isagu hore u ahaan jiray wasiirkii xanaanada xoolaha Puntland isla markaasina markii ugu horeysay baarlamaanka Puntland soo galay waxa aad dad badan la yaabo arkaan inaad maanta ku soo biirtay baarlamaanka 2 cisho hor 3 cisho hor markii banaad ku guuleystay maxay kula tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa kasta oo qofku mar hore ha yimaado baarlamaanka ku jiro baarlamaanka aniga soo doortay inaan ku soo biiro oo xubin noqdo inay doortaanna ilaah baa gartay wixii ka sokeeyana iyaga gartay oo fududeeyay marka taas wax qariib ah iguma aha baarlamaanku cid bay dooran lahaayeen rag xildhibaano hore xildhibaano ahaan jiray rag la yaqaano ah oo gudoomiye hore ka mid yahay cabdixakiin 5 sano ka mid yahay maxaa cali guuradii maxaa cali xaashi gudoomiyaasha baarlamaanka soo noqday raggaas ku tartamay marka ama iyagu bahel anigu ma hel lahaa anigu maadaama baarlamaanka ku cusbahay waxaan ku faraxsanahay in gudoomiyaashii hore oo baarlamaanka master Mudane Cabdirashiid Axmed Cali Xaashi gudoomiyaha baarlamaanka aan jiray cabdixakiin hadda xubnihii hore baarlamaanka ahaa raggaas oo dhan inaan tartanay aad baan ugu faraxsanahay wax marka hadda qariib ah inay iyagu helaan anigu helan cusub waa tahay waxaad tahay wasiir soo shaqayn jiray oo dawladda Puntland siyaasadeeda aad la socda baarlamaanka shaqo fara badan baa ku hortaala
allah kadib marka doorashadan iyo waxan ay dhacaan shuruuc badan oo wadanka taalay baa u baahan in dib loo ama la howlgeliyo ama qaar kale cusub sameeyo barnaamijyo badan baa waxay u baahan yihiin olole baarlamaanka Puntland waxa inta badan dadka reer Puntland ay ku eedeeyaan inuusan si wanaagsan ula xisaabtamin xukuumadda adigu xukuumadda soo hanjitay maantana waxay gudoomiye baarlamaanka labada arrimood adigoo ka jawaabi karaya sidee bay kula muuqataa horta anigu baarlamaan ma soo ahaan jiray federaalkan muddo baarlamaanka xildhibaanka soo ahaa sidaasaan xildhibaannimada u doortay oo u jeclahay waxaan aaminsanahay baarlamaanku inuu shaqayn jiray raggii hore u joogi jirayna inay ku shaqayn jireen oo shaqo fiican qabteen oo hadda halkan maanta ku dhamaatay halkan taaganahay ilaa maalinta soo bilaabeen baarlamaanku waa shaqaynayo baarlamaan jiraba ahaa waa dadaal doonaa inaan wax dhiman iyo wixii aan ku kordhin karo ku kordhiyo aniga la tashanaya raggii khibradda u lahaa maadaama Puntland gudoomiyaasheedii xildhibaanadeedii ay joogaan arrimaha khibradda u lahaa sanad walbana wax isbedelaan oo casriga wuxuu ay la jaan qaadaan dawladdu markaa jirta sidan hal qodob oo muhiim ah yaa jiro haddaan dawladdu fiicnayn baarlamaanku ma fiicnaado marka waxaan rajaynaynaa dawladdu inay baarlamaanka la shaqayso insha Allah oo wax ka dhiman ku darto waa tahay gudoomiye waxaan jeclaan doonaa inaad 2 daqiiqo noo dul qaadato anagoo barnaamijka ku sii dul jirno waxaad ka mid ahayd gudoomiyaashii baarlamaanka Puntland soo maray 2006-2008 Axmed waa tartantay maxay kula tahay maanta aad gudoomiyaha cusub aad oran lahayd waxaas ka bayd waxaasna ku dhiiro bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha cusub Saciid Xasan Shire ruuxaantii wuxuu codsaday wixii ugu khayrka badnaa wanaagsanaa oo ah in loogu duceeyo marka hore waa ugu duceynaynaa ka bacdi ugu hambalyeynaa wixii aanu ku dhaanno xog khibrad ma oran karno xog baarlamaanka Puntland waa la garab taaganahay waa Saciid waa saaxiibkay muddo badan baan saaxiib ahayn hadda waxaan ugu hambalyeynayaa inaanu hareeraha ka fadhino wixii talo wadaag ay noqono goluhuna saa ku socdo وبالله التوفيق waxaan jeclaan lahaa in dad badan oo baa ina daawanaya Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa su'aashan ku weydiiyay hadii aad jawaabi u hayso inaad ka jawaabto maxaad gudoomiyaha ku oran lahayd maanta maadaama uu cusub yahay kow ay u tahay waxaasna way ku hor yaalaane ku dhiiro oo wanaageeda sii wad waxaasna ka leexo waxaan ku dhiirin lahaa qodobka ugu horeeya waxa weeye hal daw ayuu baahan yahay baarlamaanka Puntland halkaasna waxa weeye dhaqaalaha golaha inuu ka madax banaanado wasaaradda maaliyadda dawladda uu noqdo uu helo dhaqaalaha madax banaan kaas oo ay muuqato inuu goluhu cabiri karo fikirkiisa balse hadday sidii hore ahaato wasaaradda maaliyadda daba fadhiisatid goluhuna sidii buu ahaanaya dacaayadda iyo hawshuna way badanaysaa waxaan rajaynaynaa meel kasta ha noqoto inaad ku dadaashid inaad heshid dhaqaalaha ka madax banaan dawladda waa tahay waa ku soo walaalihiin soo labanay Cabdixakiin waxaan jeclaanayaa kalmad ku weydiiyo gudoomiyahan weydiinaya gudoomiye waa arinta ugu weyn ee dad badan aaminsan yihiin goluhu inuusan shaqayn karin haddii aan talada gudoomiyaha Axmed oo kale aan la qaadan arintaas maxay kula waa ku faraxsanahay oo waaqiraya maadaama gudoomiye kamid ah gudoomiyaashii soo maray baarlamaanku talo uu soo jeediyay tahay daliil ogaan ay tahay aniga laftaydu waa ku baraarugsanahay baarlamaanka dhibaato weyn inay xukuumadda fulinta ka haysato oo dhinac dhaqaale iyo dhinac shaqada ay isku hayaan waxaan isku dayi doonaa haddaan aniga kaliya wax ma qaban karo 66 xildhibaan baan xukumaa haddaan isku qancino ay ku qancaan in baarlamaan madax bannaan oo shaqeeya oo waxa ka dhima haddaba rag sharaf la soo waday oo meel buu soo joogay diyaar baan u ahay waana tii aan meesha ka sheegay inaan samayn doono taa waa tahay Cabdixakiin gudoomiye mar walba waa tool u joog oo wuxuu iskanayaa khibradiini iyo waayaranimadiini kelmadan uu gudoomiyihii hore ka dhawaajiyay waa kelmad dad badan ay sheegaan ama uu xognimo ka hadlayo si loo hirgelin karaa bismillah laba arrimood baan ka horeysiinayaa oo aan isleeyahay way ka mudan yihiin taa hay'addan baarlamaanku saan kugu sheegay waa muraayadii dalka laga daawanayay wasaqda yar ee ku dhacdaana cid walba way u muuqanaysaa waxay wakiil ka yihiin shacabkii mas'uuliyaddii dalkan iyo dadkan oo dhan baa dhalada loo saaray iyagaa la rabaa inay u sii wakiishaan cid kow waxaan leenahay cid ku habboon horta in loo wakiisho waa talo waan ku talinaynaa cid dadka u qalanta in loo wakiisho
labada qodob oo kale ka horreysayna waxay yihiin kow baarlamaanku wuxuu u baahan yahay oo ka muhiimsan dhaqaalaha ilaalinta sharciga baarlamaanka qiimihiisu laakiin axmed wuxuu leeyahay ma ilaalin karaan sharciga haddii aysan arrimahan maya ilaalinta sharciga ayaa soo celinaysa wax kasta ama dhaqaale ha noqoto ama wax kale ha noqoto baarlamaanku waxa weeye waa inuu ilaaliyaa sharciga soomad garanin iyo xeerarka dalka u yaala soomad garanin waa inuu ilaaliyaa maxay ahaydeenay xeroosaadkiisa isaga ka dhaxaya then arrinta axmed cali sheegay gudoomiye axmed cali igas gudoomiye waa arrin sax ah waxa weeye baarlamaanku adduunyada waad aragtay waa inuu baarlamaanku baahida yahay because masiirkii dadku gacantiisa ku jira hadduu baahdo masiirkii ummadda oo dhami wuxuu ku xidhan yahay baahi qof baahina waad garantaa qof baahan waad fahmi kartaa qof baahani wax walba uu ugu baahan yahay marka waa arrin sax ah laakiin waa in sharciga kow ah in la ilaaliyo dhaqaaluhuna waa kala wada بسم الله الرحمن الرحيم نحول إلى أن الله يعني مجر دقالهنا شرعنا وحنكسو قاضية إلى لنتي سنة دقالهنا مشو كيمان يوحوي والضلك وحن رجين يا أرنتني عبد الرشيد أنك عبد الحكيم رهانتي ما أنت هدو حلك كقول لها أيو قرن لا تنا قرني ونصوم مرتي وأنا ورقني عفوا علني يا نبو سعيد حسن شراء waxaad ku fikirtaa maqaalo madax banaan meeshii golowkeela haddii aan taa la helin jugjug meeshaada joog weeyaan waa tahay aad iyo aad ayaa maasan waxay nagu soo biiray isna gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland mudana gudoomiye adoo ku soo dhawaanaya Cismaan barnaamijkan Somali Channel ay ku soo dhawaanayso tala bixin iyo tusmooyin lagu siinayo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka waxa laga dhawaajiyay baarlamaanku hadduusan helin miisaaniyad u gaar ah oo isagu iski u maamusho oo wasaaradda maaliyadeed iyo meel kale toona ku xidhnayn hadduusan helin inaan baahida baarlamaanka ama xildhibaanada ha noqoto waxay ku shaqeynayaan ha noqoto mushaaraadkooda ha noqoto kharashaad kale inaysan u marxabanaanayn taasna hadday dhacdo ay sahlanaanayso in baarlamaanku uu mar walba hoos tago madaxtooyada oo uu noqdo baarlamaan aan shaqadiisu functional ahayn arrintaas maxaa adiga kaaga baxay maxaa tala ku biilanaysaa gudoomiyaha maxayse kula tahay bismillahi raxmaani raxiim marka hore waa salaamayaa gudoomiyaha iyo ragga xildhibaanada oo halkan ka hadlo sharafta mudan gudoomiyaha waa u hambalyeynaa xilkana in ilaahay ku guuleeyo baanu ugu ducaynaynaa waxaan idin sheegayaa Puntland 15 sano ay soo socotay sanadkii 16aad bay madaxa la gashay maalinba duruuf baa jirtay duruuf kale ka baxayso maalinba god bay ka baxayso god kale ka tagaysay xilligan maanta ay waa xilligii qodobo dhowr oo ay ka mid tahay arrinta laga dhawaajiyay oo ah dhaqaalaha golaha wakiiladu inuu yahay wax isagu miisaanadiisa waxa uu jira uu madax banaan yahay koow maxkamadii dastuuriga ahayd in la helo hanti dhowrka in laga dhigo active waa qodobada ugu muhiimsan oo waqtigan inala gudboon laakiin way jirtay arrinta laga sheekeynayaa taasina dabcan waxay ku saameyn ku yeelatay shaqada baarlamaanka ay saameyn ku yeelatay shacabka shaqadiisii oo aan la gudan karin maxaan ku raadayay kormeerkii aan la samayn karin dabagalkii shuruucda iyo nidaamkii aan la samayn karin dhaqaale la'aan awgeed sidaa awgeed waxa weeye xilligan hawlo badan baan soo qabanay xilligan waxaan u baahanahay marka talaabooyinka inaga dhindhiman oo kaabayaasha shaqada hawl socodsiinteeda muhiimka u ah in uu maskaxda ku hayo isagoo waxna xukuumadda kala tashanaya waxna baarlamaanka ku hogaaminaya waa tahay hal su'aal baan rabaa inaan dhex dhigo kadib gudoomiyaha su'aal weydiin doonaa kadibna barnaamijkan ka bixi doonaa guuleed oo isna nagu soo biiray hadda aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wuxuu ka mid ahaa musharaxiinta u tartamasa guddiga dhaqaalaha oo ka mid ah horena wuxuu ka soo mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka ee 15 sano soo joogay intiinan gudoomiyaha cusub gudoomiyihii hore gudoomiyihii ka sii horeeyay waxaad u badan tihiin xildhibaanada laga soo doorto deegaanada ka baxsan laamiga inta badanna dawladda Puntland ma gaadho inta badan ama daryeel fiican lama gaarsiiyo sida la sheego arrintaas baarlamaanku door intee laga qaadanaya aan guuleed ku bilaabo بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan u hambalyeeynaa gudoomiyaha cusub Saciid Xasan Shire tartankii uu galay oo ku guuleystay waa Ilaahay mahadiis waxaan leeyahay Allah kugu guuleeyo Allah kula garab galo annagana diyaar waxaan u nahay inaan gacan ku siino xilka aad qabatay mar labaadka deegaanada aanu ka dhimi oo ka leexsan laamiga waa run oo ma gaarto dawladdu ma gaarto laakiin hadda waxaan ku talagaleynaa insha Allah ta'ala inaan u gudubno oo wixii wax qabado ay u baahan yihiin aanu ka qabanno
haddii ilaahaydan ka dhigo waana u tashan doonaa gacanna waxaanu siinaynaa wanaagsan gudoomiyaha cusub ee la doortay aad iyo aad ayaad mahadsan yihiin mudanayaal dhegaystayaal saaxiibayaal daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa xarunta baarlamaanka Puntland welina waxaan ku guda jirnaa doorashadii gudoonka baarlamaanka waxa goor dhow inoo bilaabmi doonta doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha ku-xigeenka iyo ku-xigeenkiisa labaad taasi oo iyana qayb ka noqon doonta doorashada baarlamaanka Puntland السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد كم هاي دتكي قبل شوقة كها. دتكي شوقة ما كم هذا مقعي وحلينا سعيد نور محمد. وحروح حنبلين يا قدوميها عصب سعيد حسن شريع. رنا وعاجري وسيرك حنانا الحوراء بدلاني بدك سوش كي لا يقانو تيجي سلا يقانو من وحقبان كراءة نقوم برتاي مرو فدرال كشوي وقدوم البرلمان كفدرال كمدا مرو حنانا حوالها وسيرك النقضي hore tayadiisa aad iyo aad aan u naqaano boqolkiiba boqol waxaan ugu hambalyeynaa ilaahay inuu la karab galo xilka culus loo dhiibay isaguna wixii awoodiisa ah uusan waxba xakranin saasaan u hambalyeynaa hambalyaan leenahay hambalyo aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol aad iyo aad ayuu mahadsan yahay goob joogahaasi kale oo isaguna goobta joogay waxaan dabcan dhinacyo badan ayaa meesha ka shaqaynayay waxaa haatan dhinacayga jooga wadani ibraahim muuse wadani dahraan oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada garowe gaar ahaanna qaybta wasiidada oo inta badan wararkoodu ay ka degdeg badan yihiin warar kale maxaa kaaga baxay hawsha aad baad mahadsan tahay Faisal adiga iyo bahda Somali Channel min dal iyo dibadba runtii kaalin lixaad leh bay qaaday Somali Channel saxafi ahaan ama wariyaal ahaan runtii saaka lixda aroornimo halkan nimid waxaan u taagnaa waxa weeye bulshada inaan u gudbino baahida ay doonayaan oo ah yaa la doortay maxaa la doortay maxaa howlka baarlamaanka ka dhex socda waxaan marka dadka u sheegaynaa in runtii qaabka ay baashan u dhacday ay tahay hab qaran oo kale waad dhegaysanaysay gudoomiyaha baarlamaanka talooyinka loo soo jeedinayay waxaa ka mid ahaa haddaan baarlamaanka Puntland uusan helin miisaaniyad u gaara kama madax bannaanaan karo almost in uu madaxtooyada iyo uu hoos tago ama macnaheedu uusan go'aan adag qaadan in badanna waa soo joogtay arrimahaas oo baarlamaanka Puntland wariye waxa ay in badan soo joogtay maxay kula tahay wallahi baarlamaanka horena waxaan rajeynayaa inay runtii go'aamada ugu badnaa qaadan jireen oo aad ay u adkaayeen gudoomiyaha hadda hadalkiisana waxa laga dhadhansan karaa inuu u dhagan nugulaan doono xildhibaanada hadba waxay kula taliyaan maxay waxa soo doontay xildhibaanada 40 xildhibaan soo doortay marka waxay u badan tahay boqolkiiba 90 runtii baarlamaanka hore iyo baarlamaankan inay wax badan ku kala duwanaan doonaan waliba dhalinyarada ku jirta waa tahay waxa inagu soo biiray jaamacadda Barnaamij oo barnaamijka la wada iyo Maxamed Daahir Yusuf Salim oo kamid ah injineer Saciid oo kamid ah xildhibaanada cusub waa xildhibaanka ugu daayar baan u maleynaya aad iyo aad oo mahadsantihiin daawadayaal jaamac ayaan hadda ku rajin doonaa si uu barnaamijka nagu sii daadahiyo anigoo laftayga ka fogaan doono meesha waa tahay Faisal waxaan jeclahay wax badan bay dadku xooga waxay saareen inuu gudbin hadalkii madaxda inkasta iyagu mudan yihiin laakiin waxaan jeclaan lahaa bal xildhibaanadana dareenkooda inaan weydiino sida ay u arkaan sida wax u dhaceen goor inta inaan weydiin waxaan rabaa inaan dadweynaha u sheegno tirada xildhibaanada ee soo noqotay cusub iyo kuwii hore jooga oo aan runtii aad moodo inay jin isku yihiin isku dhow yihiin 32 34 ay kala yihiin baa suurtagal ah waxaan rajeynayaa kala badh baarlamaanka hore iyo baarlamaanka kala badh injineer Saciid Agande oo macna ah xildhibaanka ugu dadayara oran karno xildhibaanada baarlamaanka ee Puntland Saciid bal dareenkaagu sidee uu yahay waxaan filayaa oo ayba tahayba waa markii koowaad oo aad xubin baarlamaan noqotay صح وي بسم الله الرحمن الرحيم هذه أدنى فرصة إن نقضى نقضى على برلمان كبوت سنة كان واحد تاني يتبدل وجودين كلين على برلمان كبوت ويكدونا سنوين كي ورسيدي حنجري دور شغلنا أدنى فرصة waxa codaysay 3 jeer baa codaysay maxaa dareemayay dareen nooca ila markii ugu horeysay weeyo aad xildhibaan baarlamaan Faisal bas waxa dareentay aad ugu horeysay aad xanuunkeeda leedahay ninka doorashada galaya iyo ninka codka bixinaya labadaba siba kaliyo u wada boodaan sababtoo ah horta ninka wax la yiri doorashada isu soo taaga waa ninka ugu geesan baleeyda dunka intuu umad soo istaagay ilaa halay doorto ونيك اللي هذا هو جيسان حتى واحد اللي نكح بدر هدية وهو كجيسان نك عد بحنا يانا كما هو يراه
ninka aad wadatay ama qofka aad wadatay aad danaynaysa inaad codka siiso ma soo baxayaan waa su'aal weyn oo madaxa ku wareegsan سعيد بانو علينا isaga hadda maanta inooga khibrad badan سعيد maxaa dareemaysay markii aad codeynaysa dareenka aad sheegaysaan wuu jiraa laakiin kan ugu daran waa kan baarlamaanka marka cod ku bixinayaan waayo waxa weeye go'aan bay muujinayaan ummad masiirkeed baa gacanta ku jira aad bay u taxadarayaan aad bay u walwalayaan sida wax noqon doona waayo haddii wax qaldamaan dhibaato ku noqonaysa mustaqbalka aakhirada adduunka marka taxadarka ugu badan iyo mas'uuliyadda ugu badan waxay saaran tahay xildhibaanka markuu cod ka bixinayo oo marka ugu fikirka badan yahay uguna walwalka badan yahay marka xaalad culus weeye xaalad qiyaasi kara maaha waa gartay marka arrintaasi aad bay u adag tahay in wax laga sheego xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo yeerinayaa gambareelka saanfilayo si ay dib ugu soo laabtaan سعيد ugu dambeyntii maxaa oranaysaa waxaan kusoo gabagabeynayaa shacabka Puntland shacabka Soomaaliyeed baan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay reer Puntland walwal iyo dib dambe ma jiri doono baarlamaan qiimo gal ah tayo leh dareenkiina ku shaqayn doona baa idin hirgalay insha Allah khayr baa isku dhunta waa tahay waxaan ugu soo biiray saad qabshir garaado 15 sanadood baarlamaanka soo joogay haddana gudoomiye mar walba waxa gudoomiyaha gudida doorashada saadiq dareenka ku sameeyay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan u faraxsanahay waxay muujinaysaa inaan nin dabac badan ahayn oo aan jecelahay saaxiibadayda kuraasta jecel inaan iyaga u xaqsooro tartan siiyo kuwa ugu fiicanna ilaahay la kaashano inay hogaamiyaan doorashada saad u jeedeen waa arkaysa gudoomiyihii baarlamaanka la doortay labadii ku xigeenka kalena hadda la dooranayaa waqtigaanu aad u ilaaleenna si 8 bisha January haddii ilaahay idmo ay u dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha waa tahay dadweyne badan baa ku daawanaya bal doorashada dambe sida dhacayso noo bariifkay doorashada wadada la marayo doorashada waayahay doorashada dambe waxay u dhacaysaa sidii ay u dhici jirtay xilliyadii hore doorashada laba doorashada ka horeeyay doorashada madaxtooyada berito waxaan golaha ka ansixin doonaa habraaca doorashada madaxweyne ku-xigeenka waxa soo baxaya habka xilligii dokumentiyada musharaxiinta ay soo gudbin lahaayeen in loo gudbiyo wixii shuruudo ah ee looga baahan yahay marka kadibna waqtigii la cayimo xilligii khudbadahooda jeedin lahaayeen maalinta 8dana ama khudbada iyo codbixinta way israaci doonaan ama waxa soo bixi doonta waqtigu inuu ama 7 iyo 8 ay noqoto laakiin taas waxay ku xidhnaan doontaa araajida noo soo gudba oo buuxiya shuruudaha madaxda la dooran doono saadiq waa ku soo laaban doona Salim oo kamid ah wariyaasha caanka ay ka howlgala Puntland ayaan jeclahay inaan weydiiyo dareenkiisa maxaad isweydiin kartaa saadiq xildhibaanka saaxiibkay saadiq haddii aan la kaftamo waxaan rabay inaan weydiiyo saaka markaan holka soo galay waxaan fiirinayay musharaxiinta gudoomiye ku-xigeenada u sharaxan xalay wararka hoose soo galayay waxay sheegayeen in gudoomiye ku-xigeen uu sharxayay saadiq wararkaas ma jacayl asxaabta anigu aan kamid ahay ay la jeclaadeen baa saadiq mise gudoomiye waa tanaasulay maya warkaas ma jirin saaxiibaday xilka gudoomiye ku-xigeenka iyo xilal kale oo aan halka ka sheegayn intaba aad baa reer Puntland igu soo bandhigeen runtii oo meelo kala duwan ah laakiin aniga waxaan jeclaystay inaan jagooyinka u tartamin waa tahay gudoomiye aad ayaad u mahadsantahay mar kale ayaan ku soo noqon doonaa hal su'aal baan Faysal ku darsanaynaa gudoomiye waxa ku weydiinayaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka soo bixitaankeeda iyo qofka gudoomiyaha baarlamaanka noqonaya saameyn miyuu ku leeyahay murashaxiinta madaxtinimada tartamaysa maya lagama sawiri karo runtii waxa laga yaabaa laba xildhibaan oo isku aragti ka ah madaxtooyada madaxweyne wada wata haddii la doono madaxweyne ku kala duwan inay doortaan laba gudoomiye baarlamaanka wata marka taas waxa meesha ka saaraysaa marka dareenkaas inta badan waa arrin ay Soomaalidu iyo dadku cabir ka qaataan laakiin cabirkaas cabir jira maaha waxa laga yaabaa in xubinta ugu fog xagga siyaasadda xukuumadda in uu codkiisa siiyo ninka musharaxa marka xukuumadda marka jirta codka siinaya marka farqiyaadkaas goluhu iska jira waxa kale oo aan halka ka iftiiminaya ma jirto musharaxiintu awood ay u leeyihiin inay iyagu cod isu wareejiyaan ma jirto hadda farsaamo anigu marka doorashada galayo number 1 cidda aan siinayo waa aqaana haddaan waayo number 2 cidda uga guurayana waa aqaana laakiin
musharaxii aniga martida ay ahaa yiri dooro xaq iyaguma leh inuu yiraahdo haddaan waa hebel si marka arrintaasna waxaan rabaa habka dadku ay u fikiraan ee ah hebel ba hebel wax siiyay iyo waxaas inaan jirin baadii muujinayo waata isaad qabshir garaad aad ba u maasan tahay waxaan jeclaan lahayn xildhibaanada dumarka inaan jaanis siino xildhibaanada dumarka aan jeclaan lahayn in aan jaanis siino Saalimo laakiin Saalim muddo badan baa doorashooyin joogtay Puntland oo ka tabinaysa sida uu arkaysay wixii dhacay maanta aad iyo aad waxaan isleeyahay jaamacu doorashadaani waxay ahayd mid dhaxalgal ah qaabka loo diyaariyay habka amniga loo sugay sida mudanayaashu ay laftigooda waqtiga u ilaalinayeen qaabka diyaar garowgu ahaa guddigu siday hawshooda ugu heelanaayeen qaabka farsamadu ahayd iyo adeegga isticmaalayeen waxaan oran karnaa doorasho ku dayashada ayay ahayd marka maadaama baarlamaan cusubna uu yimi oo baarlamaan kala barw yahay hal fariina ayaan annaga miidiyahaana u raacin lahayn arrinta doorashada maadaama xilliga doorashada lagu jiro baarlamaanna soo baxay waxaa ogtahay in aynu muddo ku hawlaneen xeerkii warbaahinta Puntland wuxuu sugayaa in baarlamaankaani fadhigiisa ugu horeeya uu ansixiyo markasta waa sheegnaa horena waa ugu sheegnay waan ku kalsoonahay baarlamaankeena maadaama hanaan cusub loo gudbay waxaan rabaa inaan xusuusiyo baaqayagii hore ahaa in kalfadhigooda ugu horeeya ay noogu soo daraan shuruucda ay ansixinayaan si wada shaqayntu halkaas uga sii hagaagsanaato dhinaca saxaafadda واتهاي محمد داق عبد الله waxaa kamid tahay waxa tahay injineerkii hagay qaybtan daawashadan sida tooska ah saaxiibkii Cabdullaahi Yuusufna wuxuu ka tirsan yahay madaxda sare ee shirkadda Golis dhinaca tikniga internetka ku soo dhawaada inaan wax ka ilaalin laakiin marka hore waxaan siinaynaa gudoomiye hore ee baarlamaanka ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi saacad gudoomiye dareenkaagu sidee yahay aad iyo aad baan farxad dareemaya alxamdulillah rabbil caalamiin meeshaan muddo ka shaqeynayay 5 sano aan hogaaminayay wixii aan ka qabtayna waa ku faraxsanahay meeshaan soo gaarsay waa ku faraxsanahay saaxiibada iyo dadkan mas'uulka u ahaana